bismillaahi raxmaani raxiim. halkan waa canta wararka ku biiro ka mid noqo daawadayaasha ku xiran halkan. waxyaabaha daaban doontaan barnaamijkan aanu ku falanqeyn doonno kuna faaqidi doonno hadduu alweyne raalli uu ka noqdo daawadayaasha saaxiibada asxaabta sida tooska inagu xiranow waxaa ka mid noqon doonaanu barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa fiqi oo sheegay in al-shabaab ay ka saari doonaan dalka muddo ayuu qabsaday. barnaamijka ayaan ku falanqeyn doonaa kuna faaqidi doonaa. sidoo kale waxyaabaha daaban doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doonno kuna falanqeyn doonno daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ah inagu xiranow waxaa ka mid noqon doonaa waanu ku falanqeyn doonaa barnaamijkan. odawaa oo ah taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa bixiyey howlgal lagu laayay xubno ka tirsanaa al-shabaab. muxuu sheegay taliyuhu? barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonaa hadduu alweyne raalli uu ka noqdo daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska inagu xiran. qodobada iyo kuwo kale ayaan ku falanqeyn doonaa barnaamijkan. fadlan leegarey sidoo kalena sheergarey qayb toosan arahdaadii waxay kula tahay inugu dhaaftaa wade saaxiib waad ku maasantaha la socoshada barnaamijkan iyo la jaanqaadka barnaamijkan. mar kale kulanti wacan oo wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska inagu xiranow. aynu ku bilownay axmed macalin fiqi waa wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya. waxa uu markaasi ka hadlay sheegayna in muddo 2 sano ah uu ku soo afmeeri doono maxkamadaha ururkaasi al-shabaab sida uu markaasi ka sheegay dhowaan. dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in muddo 2 sano ah gudahooda albaabada iskugu dhufan doonto waxa loogu yeero maxkamadaha ee kooxda al-shabaab ay ka dhisatay shabeellada hoose iyo daafaha muqdisho. wasiirka cusub ee arrimaha gudaha axmed fiqi oo markaasi dhowaan hadlaya ayaa sheegay in dadka cadaaladda u raadsada maxkamaduhu la soo afmeeri doono maadaama laga aamin baxay nidaamka garsoorka dalkana la hagaajin doono. waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka go'an tahay in 2 sano ee soo socota ay beesha ka saarta maxkamadaha noocan ah ee ku howlgala shabeellada hoose sida uu sheegay iyo gobolka banaadir oo uu markaasi carabka ku dhuftay degmada daynile. sida uu sheegay fiqi fulila'aanta xukunada maxkamadaha dowladdu ayaa sabab u ah in soomaalida qaarkood ay cadaalad ka helaan maxkamadaha kooxda al-shabaab. waxaa loogu yeero maxkamadaha kooxda argagixisada ee xiriirka la alqaacida ayaa saameyn ku leh dalka geeska afrika iyadoo mararku qaar ay dib u celiya go'aanada ay soo saaraan maxkamadaha dowladdu. dad badan ayaa maxkamadaha al-shabaab u raadsada cadaalad si qarsoodi ah sababtoo ah waxay aaminsan yihiin in maxkamadaha dowladda soomaaliya ay yihiin kuwo musuq maasuq ah oo qofkii lacag leh markaasi uu ku awood badan yahay. maxkamadahan ayaa ah ama markaasi ah kuwo gurguura oo inta badan ka howlgala shabeellada hoose, shabeellada dhexe iyo jubbada dhexe, waana dhulka keliya ay gebi ahaan gacanta ku hayaan qaybo badan ama qaybo ka mid ah gobolladaasi ururkaasi al-shabaab. madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isku dayay balse uu ku guuldareystay in dadka uu ka mamnuuco inay markaasi u dhowaadaan maxkamadaha kooxdaasi. odawaa yuusuf raage waa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. waxa uu sheegay kana hadlay howlgal lagu laayay al-shabaab. taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odawaa yuusuf raage ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgal qorsheysan oo ciidamada xoogga dalka ka fuliyeen duleedka deegaanka janaale ee hoostaga gobolka shabeellada hoose. jenaraal odawaa yuusuf raage oo la hadlaya warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in howlgalka ka dhacay tuulada kilojido ee hoos tagta janaale lagu beegsaday kooxda al-shabaab. taliyuhu wuxuu xaqiijiyey in howlgalkaasi lagu dilo ugu yaraan 10 ka tirsanaa al-shabaab isla markaana la dhaawacay 13 kale. wuxuu intaa raaciyey in kooxda al-shabaab ay ka soo furteen hub fara badan ayna burburiyeen fariisimo ay ku lahaayeen halkaasi. waxaa kaloo uu tilmaamay inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gobolka shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya. dhinaca kale ma jiro wax hadala oo ka soo baxay dhinaca kooxda al-shabaab oo ku aadan howlgalkaasi oo ay markaasi guulaha ka sheegteen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. xaaladda ayaa haatan kacsan waxaana duleedka janaale laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ciidanka oo isla markaasi waa iska soo horjeedo sida ay noo sheegeen ilo deegaanka dad ah. gobolkaasi shabeellada hoose ayaa ka mid ah meelaha ay ku xooggan tahay kooxda al-shabaab waxaana inta badan ka dhaca dagaalo geystay khasaare kala duwan.
Raabidada Islaamka ayaa ka qayb qaadanaysa gurmadka abaaraha. Ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan gurmadka abaaraha, Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa kulan la qaatay Xogayaha Guud ee Raabidada Islaamka waa Caalamka Islaamka, Sheekh Maxamed Cabdi Kariin. Kulanka labada mas'uul oo ka dhacay magaalada Riyaadh ee caasimadda dalka Sacuudiga ayuu ergeygu warbixin buuxda ka siiyay xogayaha xaaladda murugsan ee abaaraha ka taagan Soomaaliya iyo kaalinta ay ka qaadan karto raabidada caalamka. Dr. Sheekh Maxamed oo sidoo kale ah guddoomiyaha Hay'adda Culimada Islaamka ayaa ballan qaaday inuu markaasi u howlgalayo sidii gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu sida ba'an u saameeyeen xilligan. Ergeyga abaaraha Warsame ayaa maalmihii lasoo dhaafay socdaal ku marayay qaar ka mid ah dalalka Carbeed, isagoo dhowaana dhambaal qoraal ah ka siday madaxweynaha Soomaaliya oo ku aadan gurmadka abaaraha gaarsiiyay xogayaha ururka Islaamka. Raabidada caalamka Islaamka waxay ka mid tahay hay'adaha saameynta ugu badan ku leh shacabka Sacuudiga ee deeqda bixiya, waxayna markaasi ballan qaaday inay gacan ka geysan doonto caawinta malaayiinta markaasi qof ee abaaruhu daran ay ku saameeyeen Soomaaliya. Ku dhawaad 8 milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa abaaruhu saameeyeen, waa kala bar tirada guud ee Soomaaliya sida la wariyo. Dhammaan gobollada dalka ayayna markaasi ka taagan yihiin xaalado bini'aadanimo oo ka jawaabid degdeg ah u baahan. 1 milyan iyo badh ka mid ah dadkaasi abaaruhu saameeyeen ayaa ah carruur, balse lama oga sida markaasi loo gaarsiin karayo tallaabooyinkaasi iyo gurmadka abaaruhu marka loo qiimeeyo dhibta daran ee baahsan ee jirta iyo qorshaha fulinta oo iyana markaasi hooseeya. Inkastoo guddi uu magacaabay ra'iisul wasaaruhu ay markaasi iyana howl qaban doonaan ama shaqeyn doonaan, lama ogase tallaabooyinkaasi guddidu in markaasi ay miro dhal noqon doonto oo arrintaasi ay wax hagaajin karto iyo in kale. Si kasta oo xaaladda noqoto, daawadayaasha saaxiibada sida tooska nagu xiranow, si weyn ayaana loo dhoorayaa arrimahaasi. Waa hagaag, waxaanu eegi doonaa markan oo aanu barnaamijkan ku falanqeyn doonaa qeybaha kale ee ka harsan. Mas-uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed ayaa gaaray degmada Dinsoor. Wafdi uu hogaaminayo wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Isxaaq Cabdi ayaa gaaray Dinsoor oo ah gobolkaasi Bay. Wafdiga waxaa qayb ka ahaa wasiiru dowlaha madaxtooyada Koonfur Galbeed Maxamuud Maxamed Kheyre, guddoomiyaha gobolka Bay Cabdilfataax Maxamed Ibraahim Biyaano, iyo taliyaha ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed Yunis Aadan Xasan. Wafdiga wasiirka amniga Koonfur Galbeed ayaa tegay xeryaha ciidamada federaalku, daraawiishta iyo kuwa midowda Afrika ee ADMIS, gaar ahaan kuwa Itoobiya. Waxay kulamo markaasi gaar ah la qaateen saraakiisha ay la kulmeen. Sidoo kale wafdiga ayaa la kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada degmada Dinsoor. Waxay ka wada hadleen wax ka qabashada go'doonka saaran ee degmadaasi. Wasiirka amniga Koonfur Galbeed Maxamed Isxaaq Cabdi ayaa ballan qaaday inuu wax ka qabanayo go'doonka saaran degmooyinka gobolkaas, lana fulinayo howlgallo markaasi la isugu furayo isugudubka gaadiidka qeybihii kala duwan. Si kasta oo xaaladda noqoto, daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ah inoogu xiran halkan. Qeybo ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka jira go'doon baahsan oo muddo ka taagan, sida gobolkaasi Bakool oo ay ka dhacaan dhibaatooyin lixaad leh marka loo qiimeeyo dhacdooyinkaasi taagan. Si kastaahi oo xaaladda noqoto, mas-uuliyiintan amaba xubnahan booqashada ku tegay dhulkaasi ayaa la sheegayaa in markaasi ay dhaqaajinayaan arrimo dhowr ah si markaasi loo dardargeliyo howlo iyo qorshayaal ballaaran oo maamulkaasi ka socda, oo maamulkaasi Koonfur Galbeed uu markaasi doonayo in lagu habeeyo. Halkan waa xanta wararka, waxaan idiin dhaafnaa sida iyo nabadiino. Amaana Allah, daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ah inoogu xiranow. Fadlan ha ilmaamin leegta, sheerta, sidoo kalena la wadaag saaxiibadaada xogaha, warbixinada iyo dhacdooyinka daawade. Mar kale kulanti wacan oo wanaagsan ayaanu hawadeedii kale nahay daawadayaasha iyo saaxiibada inagu xiranow. Fadlan ha hilmaamin inaad leeg saarto adigoo markaasi baaqi ku sii ahaanaya halkan, sii joogaya xogo dhacdooyin warbixin ayaan idiin soo gudbin doonaaye.